أنت كده مرة أصلا موضوع أنت كورونا أنت كورونا نفي ما ganacsiga dhibaato badan u geystay oo dhibaato badan u saameyn ku yeeshay nafta dadkan la qabnay oo dadka guudka la qabnay waxaa noo dheeray dhinaca dhaqaalaha markaa fiirisid sektarada oo ganacsigu u qaybsanahay ilaa 10 sektar aan koobanahay waa ku kala badanahay ilaa 8-9 sektar si gaar ah u saameeyay markaa fiirisid iyadoo ganacsiga yaryar iyo wax walba ilaa hoos u gaadhigay oo shaqo la'aan oo abuuray laakiin haddana waxaa moodaa sektarada oo si gaar ah xanuun badan oo u yeesho waxaa ka mid ahaa shirkadaha diyaaradaha airlineska oo runtii aan dhihi karno diyaaradaha la soo kirayey saacadaha la soo kirayey waqti dheer heshiisa la galay diyaaradii loo shaqeyn kartaa markaasi meesha taala lacagtina adig ku socotaa kolley waxaa kaa dhintay istishimada hadda aan u talagalay iyo waxa dhacay sida statistikada aan ka sameynay waxaa ka mid ah qolada tigidhada oo kaleeto oo ayaga laftigooda tigidha jareen barnaamijka soo diyaariyey maxaan ku rahdaa cimro iyo xaj oo hoteelo sii kiristay oo lacagii u shubay ee haddana wixii ay ku go-een shaqaalihii intaas ka shaqeynaya oo ayagoo saa u iman waxaa ku dara sida hadda laga dhawaajinayay parkinka iyo xawaalada oo runtii lacagaha anaga ganacsigaan aan ku dhaqaaqno oo wax lagu keenay dalkan oo lacagihii istaageen markii lacagihii istaageen marka waxaa timid cabsi ah in wax lagu soo adeegto in la weyn doono iyadoo kaa jirta haddana waxaa timid in adduunkii marka supermarketyada kala duwaya oo badeecadihii kala urursanayo oo anagii haddana lacagtaan kusoo adeegayn aan lahayn oo maxaan ku radaa baroodina looga iman jira istaageen diyaaradihii mararka qaar kaashka lagu soo qaadi jira ayagana istaageen runtii cabsi waxaa timid ah anaga wax u soo saaran ama dhibaato kala ugu timaadaa markii waxaan la sameynay xiriir oo runtii wasaaradda ganacsiga dugula inoo dhigtay wasaaradda maalinta oo ku mahadcelinayna oo tale anaga ganacsiga isugu nimid ayagii waxaa la keenay ah in oo cashuur ka sameeyo si model dadka markii wax la dhimo xoogaa badan waxaa imaanaysa badeecadii aad xarayn lahayd inaad istilaato damo imaanaysa kaa jaban marka bolisigaas ay soo jeediyeen wasaaradda annagana aada ugu aqbalay waxaa la dhigay bariiska iyo saliidda bariiska iyo timirta oo kale zero taxation laga dhigay burka iyo saliiddana waxaa laga dhigay 50%. runtii wax badan maahayn wax la dhigay laakiin ad ahaanaysaa mid u lahayn waxaa kaloo soo gudagala xilligii ramadaanka oo asagana cabsidiisa lahaa oo ramadaankooda u taagay badeecada iska kacday markaasaa haddana gurihii wasiirada iyo guddigii loogu taageeray inay koronahan u adeegaan ama mar kasta haddana habeen walba wasaaradda ganacsiga wasaaradda maaliyadda xafiiska madaxweynaha waxaan ka wada shaqeynayay dhaqdhaqaaqa ganacsiga maalin walba waa kacay waa dhacay markii la wada anaga shayga waxbaa ku darsoomay oo waxaanay lahayn waxaan aad ugu dadaalayay marka inaan dadweynaha aan wax lagu qaaliyeyn ay maarata meesha lagu waayay xagga rabbina sida xagga buu ka go-ayay ilaahay waa lagu garagalay oo ma dhicin badeecadihii ku bilowday $25 markii dambe iyagaa $10 gaaray ma qaarkood badeecadihi aan isna waa qaaliyowi doontaa waa khasaaran marka meelaha kale khasaaraha xoogga oo ka dhacay waxaa kamid ah shidaalka oo kale isagoo maraya $114 koreya waxaa masajka ka arki doontiin oo marka kaliya oo soo dhacay $64 $44 barkaraan oo bixiyay marka la fiiriyo marka shidaalka daan ku kaydsanaa lacag 25 milyan qof ah markii uu khasaaray laakiin qofkii ma ka dhammaan waxba u harsan oo dhaqdhaqaaqa iska sii jira meelaha xanuunka weyn u gaarsiiyo hoteelada kamida iyo daliska oo ayaguna ku helaya diyaaradaha iyo dhaqdhaqaaqooda oo maanta shaqaalihii ka shaqeynaya iyo dadkii cuntada la karinayo loo soo diiday inay isu yimaado hoteelka la yimaado oo jidkooda istaaga culeys badanaa marka dhinaca marka meelaha ugu khasaara badan ay kamid tahay warshadahoo kale culeysaa soo gaaray exportiga waxyaalaha la dhoofinaya dhibaata dhinaca qaarkood mararka qaar imaanaysa importiga waxaan xasuustaa iyadoo qolooyin jiray inta bilacag kasoo direen oo markii bilacada ay soo direen ay dalka timid lockdownka markuu dhacay xafiisyadii jeena ee dukumentiga inay soo diraan xafiisyada loo dhahay markii la helo bilacada hawlay taala dukumentigii lama hayo waxay noqotay marka inay deked iska taalo oo gamarage iyo storage iyo wax walba isaga socda waxaan isku dayna wasaaradda maaliyadda inaan la wadaagno oo dhahno waxaan cashuur dhaafka loo sameeyo ama si un halooga soo saaro marka qofka xataa milkiyadda bill of ladinkaan lahayn oo wixii wada maqan waxaa imaanaysa marka cabsi badanaa timid bilacada 6 bilood ay qaarkood ku gaartay meesha wala sidaas marka qaarkood waxaa laga yaabaa toon iyo waxbaa kamid ah waa baaba-eenba markaasi u fiiriso badacadaha qaarkood kuleelkii iyo meeshay ku jireen runtii khasaaro badanaa soo gaaray dhinacyadaasoo dhan markaa u fiirsato waxyaalo badanaa jiray energy oo kale markaa u fiirso korontada oo kale qiimaha dhinac ku jira xalan oo kale oo shaqo badan ay ka socoto dukaamadii ka fogaa
ganacsi badan oo ku jiro markaad si u fiiriso ganacsiga dhibaatada soo gaartay runtii wax oo aad u xanuun badan waaye waan isleedahay wax rabaan xagga loogu talagalo waaye saas ay tahay haddana ramadaankeena soo gudagalay waxaan isku daynaa iyadoo ganacsatada dhibanka haddana inay caawiso dadka waxaa dib loo sameeyey ganacsatada samaysay barnaamijyada forwardka oo lacag haddana inta ururiyeen ay markaas is caawiyeen markaas haddana saas markaa sadaqadaas dhinaca kale furanayso ilaahayna aan mareenayn wax ka yar looga dhigay waxaa moodaa dhimashaduna ilaahay waa noo yaray xilibkuna ilaahay waa ku jira dalkana waxaa moodaa cimiladiisu aad u fiicnaaday hawadiisa marka sidii loo malaynayo wax badan oo ka hooseeyey alxamdulilah marka waxaan rabaa inaan si gaara u mahadceliyo wasaaradda ganacsiga oo runtii dadaal badan kula jirtay dhinaca gaaridda ganacsiga markaa u fiiriso barnaamijka quality control oo hadda lagu guuystay dhowrka barnaamijkaasi wuxuu hadda faa'iido weyn u yahay sida hadda oo wasiir hore oo ka dhawaajinaya wax soo saarka dalka wuxuu u xayiraan teedhoor haddii teedhoorkaas anaga aan helno waxay imaanaysa markaa badaacada filayso haddaysan helin certified sax aadan u helin caalamka meel lagaa qaadanayo ma haysanin marka hadda waa lagu dhawaaqay guddiga lawaada samay boorkina hadda gacanta lagu haya waxaan rajaynaynaa marka s g s benfilitas iyo shirkadaha lamidka ah ay horumaraan in badaacadana ay loo fi doonto waxaan haysanaa maraakiibta lagariska ah waxaa bilowday maraakiib hadda sacuudi carabiya halkan oo leegasoo jimco kasta imaado weyn kasta waa yimaadaan khudaarteena marka waxay bilaabanaysaa marka inay si fudud u dhoofi doonto markaan u helno community dhamaystiran international waxaan rajaynaynaa marka arrimahaas siday hadda wasiir ku socdaan in lasii dardargeliyo si aan ugu diyaargaro uga faa'iidaysano arrimahaas si degdega loo dhoofiyo waan rajaynaynaa shuruucda kale soctaan inaan annaga iyo guddiga dhaqaalaha iyo wasaaradii aan si kaashano runtii waxaan rabnaa mar walba ganacsatada laga tixgeliyo intaan shuruucda aysan u gudbin golaha wasiirada ama aysan u gudbin baarlamaanka waxaan xasuustaa sharcigii company lowga aadan isaga kaashanay inkastoo asaga laftiisa weli aan dareemayno kulle laakiin ku noqosha waliya mar kastaba waa isla fiirin doonaa waxyaalahaasoo dhan waxaan rabaa inaan si kaashano waxaan rabaa marka ugu dambeyntii inaan ilaado waxaan aad u xumahay oo ganacsatada aad waxaan ujinaysa ayadoo dhibaatadaas jirta oo waxaas oo dhan jiraan haddana waxaan kugu dara wadooyinkaa laga helaa wadooyinkaa xiran meel la marmaro badaacada warshadihiiya yaraayo hadda dhibana oo wax laga gadan waayo wixii yara ay soo saareen meelay marsiiyaan malakan dowladdu waxay ku leedahay canshuuraan rabnaa canshuurta ay rabeenna mar raba kusiibsaysa inay miskiyaan marka qaarkood aad u xanuun badan tahay marka qof adigii marka wixii waa bixinaynaa waxaan isleena waxaan ku tilmayaa laakiin haddana waxaa isleeda badiilkeedii laga rabay ma helayno mararka qaarkood saas ay tahay haddana wadooyinka anagaa diyactireen anaga wadooyinka diyactireen oo laamiyada hagaajinayna oo wadooyinka hadda aan isleena boqolkiiba lixdan magaalada muqdisho diyactir fiican laga sameeyey haddana marinta ma jirto hadda waxaan xasuustaa waddaas maanta waa disacirta waqti loo yaqaano oo makaaraha ku dhow waddada haddaan xagga loo marayno dadkii warasay ka samaysteen waxaa lagu gata badaaca loo gadanaa markaasa inta badaacada lagu watay waxaa muda inta waddada waxaa laga taagaaba maxaankudaata dala diyaaraya oo lagu ganacsanayo qofka ilaa jidka baahi ma jirto jid waxaa baahidiisa ay iman karta haddii baawar warayso haddaan baawar wareed maxay noqonaya loo ganacsiyo lagu garaa waddadaasna teeniya loo isticmaala sida ay ahayd bridge loo mari jiray qashinkeedii wasaqeeda marka waxyaalahaas waxaan sugaynaa wasiirada iyo guddiga dhaqaalaha baarlamaanka waxyaalaha anaga aan investmentiga gelin ama aan laftigano isxilqaan aan ku samayno inaan helno bedelkeeda iyo raacadeeda haddii kale waxay noqon doontaa in ganacsatada marka iska joojiso waxa ay diyactirayaan iyo laamiyada ay sameynayaan sababtoo haddana waxaa ku dhifaa la maraya waa dhadhan la yeelan doonto marka walaysada aan hadna waa inaan meelahan iyo waxyaala badan oo kale rabay inaan kaga faa'iidaysano aadaan ugu mahadcelinayaa waxaan ku dhahaa wasaaradaha iyo iskaashigeena iyo guddiga dhaqaalaha iyo hawsha maanta la qabtay waxaan rajaynaa hadda ka hor wasiirka maaliyadda waxaa ugu yidhi koronaha lacag 50 milyan loogu talagalo soo gaaraysa markaas waxaan isdhihi tolo see loo qabi doonaa yaa la siin doonaa waxaan ku fikiray marka hadda haddana iska dhegeysadeen noqonaysaa waa iska wadayna anoo sheegayna aniga awal ilaahay wax la siiyey ma ku talagelayne laakiin waxaan leenahay ummaddu ha ogaato inta ganacsatada soo gaartay iyo dhaqaalaha dalka waxa ganacsiga soo gaaray anaga kuma dheer waa dhaqaalihii dalka wax ku dhacay anaga mar walba waa wixii oo siiyaa markaasaa weliba forexiskiyo lacagteeda kaashka wareegiisana lacag badan baxay meesha oo ka baxday marka waddanka dhibaatooyin badan isdhex maray maxaan ku dhahdaa xawaalada istaagtay intii yarada forex uga baxay maxaan ku dhahdaa koroniyo maxaan ku dhahdaa dhinaca sakiina cabsi badan ay timid si badan marka dhaawacaas iyo dhaqaalahaas oo waxba ay marka daraasadka laga sameeyo wax badan hadda ku arki meesha kala qoro haddana dadka dayarta ee shaqaalaha ah
المشارات قوة أما الغرفة أما لو معناتها أنت شركة قصة نقص هذا استفر اللي كان دي كلام ولا بذكر هذا وصل بين إن شاء الله جمهور الدولة أساس وكلا أيضا وأسوق الدين واحد كمان سيد الرجال بس إيش كان كده أساسا هو ولا يجي وحمر بكرهني برامج كي أو برامج وزير التلفزيون وجابرينا وهذول بقى حد يستخدموا كل جري مركز وأسوس التلفزيون وكايتها هنا وركبني مرة ولكن وبرو فعلا الله يسوع الصلاة لا نتشوار ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dalbila show waa bandhig wareed loogu talagalay in lagu soo bandhigo horumarada kala gedisan ee dalku ku tillaabsanayo gaar ahaan dhinacyada ganacsiga iyo wax soo saarka waana hindiso u gaara shirkadda adeegga warbaahinta Sima Media oo aqoon iyo waayo aragnimo durugsan u leh bilada ganacsiga iyo horumarinta dhaqaalaha cidii haddaba danaynaysa in hawlaheeda ganacsi lagu soo bandhigo dalbila show waxay nagala soo xiriiri karaan ciwaanada hoos ku qoran soo gudbinta barnaamijkan waxaa taabageliyay Milga Media Productions